waxaa sii badanaya saameynta iyo khasaaraha ay fatahaada wabiyada Daawo iyo Jubba ay ka geysteen degmada Doolow Soomaaliya waxaana wali xaalad adag ku jira qoysaskii ku barakacay fatahaada iyagoo markaasi guriyo kale iminka dulsaar ku ah dhanka kale culimo u diin ka tirsan mu'assasatu Ar-Rahma ayaa maanta booqday goobo markaasi ay ku fataheen wabiyada Jubba iyo Daawo waxayna baaq markaasi u dirayaan dhammaan bulshada islaamka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inay u soo gurmadaan dadka markaasi dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaada ay geysteen wabiyada Jubba iyo Daawo waxaana baaqan diraya madaxda mu'assasatu Ar-Rahma ee degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow Soomaaliya ganacsatada degmada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada 10 bisha Ramadaan 1441 kuna beegan 12 bisha shanaad 2020 waxaan joognaa degmada Doolow gobolka Gedo halkaan marka waxaan bal inaan u kuurgalno ama aan ogaano dhibaatada inta ay la eg tahay wadadan hadda aan taaganahay waa wadadii faras magaalada bartankeeda mareysay ee degmada Balad Xaawo aadaysay halkaan marka xaafadii inta ka jirta oo dhan waa buuxda marka anagoo ku hadlayna magaca mu'assasada Ar-Rahma oo horumarinta iyo waxbarashada ayaan waxaan baaq u diraynaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed jaaliyadka muslimiinta meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan garab qabashada walaalahood ku dhibaataysan degmada Doolow saaran yihiin dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay gargaar la soo gaaraan wixii ay awoodi karaan inaysan ka reebanin ayaan ugu baaqaynaa insha Allah taala ilaahay idinka ajirsiyo anaga oo ka nimid Balad Xaawo wakiilna ka ah mu'assasada Ar-Rahma maartay baaq guud u diraynaa dhammaan caalamka ama wadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed in dadkan gurmad loo soo gaaro loona soo duceeyo waxa wixii la heli karo gaar ahaan Ar-Rahma waxaan ka codsanaynaa inay baaq u dirto ummadda ayadoo maanta ka qaadanayso aqoon ama aragti ka qaadanayso wakiiladii ay soo dirsatay runtii maanta waxa ay dhex taagan yihiin oo indhahooda ay ku arki doonaan qaar ka mid ah qoysaska oo aan maanta la kulanay ayaa waxay ka warbixinayaan xaaladda iminka ay ku sugan yihiin kadib markii ay guryahoodii ka soo barakaceen ma ilaaha mahad dad noogu dhimanayna laakiin wixii guryaha ku jira alaabaha way la tageeno dibna kaba way la tageen وكاس لا يمدنا مسؤوليه يا كرامات مسؤول ما جرتو مسؤولها شيء واقف صوت مسموح waxaan u sheegaynaa degmada Doolow Soomaaliya xafadan Galbeed si ahaan baata biyo ku haya waxaan rabnaa gurmad oo naloo fidiyo wixii naloo heli karo taasna u sheegaynaa hatta banaanga degna inta ku qaxnay islaamna qaxiisi laakiin idii uu degnayna ka noolayna tan biyo ka jiraan laakiin hatta muslimaan korfuulna ودني برمدي هات لا فاغينو انني بسدي لكن والكلا ان هات شيغانو مس alaab ii warqi horta ma bahayno laakiin nan walaba naftiisa la basani dhabku sugaa jir hatin meel un dhasuunana markii la jiifday un deganu Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolow Soomaaliya.